dadka badana World Cup-kan daawada waxay u maleeyaan in koobkan uu dhex yaalo Faransiiska iyo Argentina, balse ka waran haddii aan ku sheego taariikhdu sidaas noqon mayso. waxaa jira 4 xeer oo ay wadaagaan dhammaan wadamadii qaaday World Cup-ka ilaa iyo goortii uu bilowday, balse markii aan fiirino wadamada soo haray hal wadan kali ah ayaa leh 4taas xeer oo ah calaamadihii lagu yaqaanay wadankii ku guuleysan lahaa World Cup-ka. xeerka koobaad FIFA Ranking Rules. koox kaste oo gasha koobka adduunka iyadoo kaalinta koobaad kaga jirta FIFA, kooxdaasi kuma guuleysato World Cup-ka. ka hor intuusan bilaawin World Cup-kan waxaa FIFA Ranking-ka hogaaminaya Argentina, inkastoo Argentina ay ku socdaan wacdarada Messi iyo nasiibkooda oo mar walba saaciido, inkastoo dadka qaarkoodna ay yiraahdaan arbitrage ayaa caawiyo. Argentina World Cup-kan kuma guuleysan doonto maadaama uu yahay xeerkan xeer mar walbaba soo noqnoqda. xeerka labaad, ciyaaryahankii qaaday Ballon d'Or-kii horey uma aysan dhicin wadanka uu ka soo jeedo ciyaaryahanka Ballon d'Or-kii hore qaaday in wadankiisa marka la yimaado World Cup-ka uu ku guuleysto. tusaale, markii Karim Benzema 2021 uu qaaday Ballon d'Or-ka, 2022 wadankiisa uu yimid finalka, Argentina waa tii ay qaaday. midda kale, Cristiano ayaa 2027 wuxuu qaaday Ballon d'Or-ka, hase yeeshee meeshii laga rabay wadankiisa 2028 World Cup-ka inay qaadaan waa tii ay Faransiiska qaadayeen. xeerkan ayaa ah xeer soo jireen ah, taasoo micnaheeda ah wadanka Faransiiska asagana kuma uu guuleysan doono. xeerka saddexaad, kooxda uu hogaaminayo macallin ajaanib ah. markii World Cup-kan uu bilaawanayay dadku waxay lahaayeen waxa u badan tahay inuu Cristiano Ronaldo uu qaadi doono, hase yeeshee waxaa jiray xeer qarsoon oo la yaqaanay. weli kuma uusan guuleysan wadan uu hogaaminayo macallin ajaanib ah World Cup. mar walba wadanka uu hogaaminayo macallin ajaanib ah weligiis ma uusan qaadin World Cup. wadamada sida Ingiriiska iyo Portugiiska ma ay qaadi doonaan World Cup-kan ayagana, inkastoo wadamo badan markii 3daas xeer laga reebo ay dhammaanba wadaagaan sida Norway, Morocco iyo Egypt. hase yeeshee waxaa kaloo jiro xeerka afraad oo ah xeerkii ugu muhiimsanaa oo caddeynayay wadanka qaadi lahaa World Cup-kan. xeerkaasna waxaa waaye xeerka afraadoo experience-ka la yidhaahdo. koox kaste oo qaaday World Cup-ka tani iyo 1970 waxay lahayd taariikh iyo khibrad weyn weliba dhanka World Cup-ka. wadamada yaryar sida Switzerland, Norway, Paraguay, Colombia dhammaan xeerkan ma lahan. hal wadan kali ah ayaa leh xeerkan, wadankaasina waa Spain. Spain ayaana ah wadankii hore u qaaday World Cup-ka 2010, waana wadanka Euro-gii ugu dambeeyay qaaday, waana wadanka xitaa ciyaartii finalistimaha marka ay damceen in la isku aadiyo Argentina iyo Spain waa tii Argentinesku ay baqeen, waana wadanka kali ah ee 5 kulan ee ugu dambeysay ayaga Faransiiska 4 kulan ee ugu dambeysay guuleystay. Spain ayaa ah wadan dhalinyaro ah, inkastoo lagu yaqaan kubadda tiki-takada ah, hase yeeshee macallinkooda ayaa wuxuu baray sida wax loo difaacdo sanadahan dambe, oo hal gool kaliya mooyee gool kale kama aysan dhalan World Cup-kan. waana wadanka kali ah ee awood u leh in ay reebi karaan wadanka badanaa dadka ay sadaalinayaan oo ah Faransiiska. anigoo ahaanteeda waxaan isleeyahay World Cup-kan wuxuu ka dhigi doonaa Madrid. MK Entertainment, truth takes flight.